الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وموالاه. أما بعد، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أولا وآخرا waxaan soo dardaarmaynaa Allah subxaanahu wa ta'ala cabsidiisa oo ilaahay laga cabsado oo si dhab looga cabsado oo wixii ina amray aan la nimaano wuxuu ina ka reebayna aan ka harno ayaan adduun iyo aakhiraba ku liibaanay. idan wacdiga iyo waanaduba waxaad moodaa inay ku kooban yihiin Allah laga cabsado. cabsida Allah caafimaad baan ku helaynaa, maal baan ku helaynaa, nolol iyo wanaag baan ku helaynaa, xayaata tayiba oo raaxo leh baan ku helaynaa. aakhirana iyada ayaa munjiya ah, iyada ayaa lagu badbaadaya, iyada ayaa siraadka mustaqiimka laga gudbaya. wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya. Allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala jidka siraad jahannama dulmara dadka oo dhan way ku aroorayaan, waa la isugu wada imaanaya, laakiin cidda ka badbaadaysa thumma nunajji alladina ittaqaw, dadka badbaadaya ee ka gudbaya meesha iyaga ahi waa dadka Ilaahay ka cabsada. yaa looga tagayaa oo meesha ku haraya wa nadaru dhaalimiina fiha jithiya, meesha iyada ah waxaa ku haraya dadkii dhaalimiinta ahaa ayaa meesha looga tagay. intaas kadib kelmad kooban baan waxaan ka oran doonaa camalka saalixa ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala loogu dhawaado iyo iimaanka xiriirka ka dhaxeeya. camalka saalixa iyo noocyadiisa tirada badan inaan waxaan ka tilmaano. camalka saalixa ah iyo in la daa'imo iyo wasaa'isha iyo waxyaabaha keeni kara camalka saalixa inuu qofku daa'imo. maxaa u kaalmeyn kara qofka camalka saalixa inuu daa'imo? maxaa laga helaa miraha iyo tamaraadka laga helaya camalka saalixa maxay yihiin? maxaa lagu yaqaanaa qofka camalkii saalixa ahaa in laga aqbalay? muxuu ku garanayaa qofku camalka saalixa calaamaadka qabuulkiisa lagu yaqaano iyo waliba asbaabta keenta in camalka saalixa la aqbalo. in camalka saalixa runtii aan ku hormaro waa naqaanaa, waxaa la yiraahdaa huwa al-amalu alladhi yardaahu Allah subhanahu wa ta'ala. wa camal kasta oo Ilaahay uu raali ka yahay camal saalix la yiraahdaa, oo Ilaahay uu dadka ku booriyay oo uu jeclaysiiyay. nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam sidoo kale dadka ku booriyay jeclaysiiyay, waxaas camal saalix la yiraahdaa. camal kasta oo qofka naftiisa wax tara, bini aadankana wax tara, oo Ilaahay uu raali ka yahayna waxaa la yiraahdaa camal saalix. dadka muslimiinta wax taraya ama insaanka wax taraya camal saalix ayaa la yiraahdaa. إلهي وعليه سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قفكي إلهي رجينا إنه لكلمه أو كلا في عن يوناك في عن أو كهله عمل صالح الليلة. يعني عملك صالح أبا إلهي لو رجي عملك صالح أبا إلهي سبحانه وتعالى كلا كيس قف كفرحا، لكن هدو قفك عمل صالح أو سنقبا مجعل يستوي إلهي إنه لكلمه. hadduu Ilaahay la kulmaro waji gabxa kuma dhiiran karo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hor istaagiisa inuu jawaabihi loogu talagalay uu bixiyo. maxaa yeelay qof kasta oo bini aadana Ilaahay baa la hor istaajinaya, cid isaga iyo Ilaah u kala turjumaysaana ma jirto. maalinka isaga ay maalin cajaa'ib ah oo hawshiisu ay khatar tahay. camalka saalixa ah miraha laga helaa adduun iyo aakhiraba
way soo degdegi karaan oo adduunka way soo degdegi karaan oo qofku waxa laga yaabaa wax badan oo dhibaatan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaga fuudayo wax badan oo khayr ah oo uusan malaynayn Ilaahay uu keeno ayaa laga yaabaa على الأقل waxa suurtagal ah inuu qofkii khaatimo wanaagsan uu ku dhinto hadduu amal saalix ah uu leeyahay saas ayaa laga yaabaa oo adduunka ay u timaado amalka saalix ahi manzilo iyo makaano ayuu ku leeyahay diinta islaamka وعملك صالحا waxaan ognahay culimada islaamka qayb kamid ah ama culimada islaamka ahlu sunna wal jamaa amalka saalix waxay ku magacaabeen iimaan oo iimaanka iyo amalka saalix ah waa isku mid oo iimaanka amalka saalix iimaan baa lagu magacaabi karaa maxaa yeelay iimaanka waxa la yiraahdaa qawlun bil lisan wa tasdiiqun bil janan wa amalun bil jawarih amalka iimaanka waxa la yiraahdaa in qofka hadalka afka uu kaga dhawaaqo la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah yiraahdo waa iimaanka kamid waxa kale iimaanka kamid ah qofka inuu qalbiga ka rumeeyo waxa afka ka leeyahay waxa kale iimaanka kamid ah labada kaliya ma aha in wixii uu qofku ku dhawaaqay qalbigana uu ka rumeeyay uu gacmaha ka sameeyo oo la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah wax ku ool ma noqonayso qofka haduusan salaadii iyo soonkii iyo xajkii uusan la iimaan qofka haduusan maxaarimtii iska ilaalin oo dilkii iyo xuquuqul waalideynkii iyo zinadii iyo xantii iyo waxa uusan ka tagina hada la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah maxay anfacaysa laga yaabay adduunka inay dhiigiisa u badbaadiso laakiin hada aakhiro qofki waxa la oranayaa maxaad ka amal fashay la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah illa hada afka kaliya laga dhawaaqo ma ahayn waxa la rabay amal ayaa la socday marka amalkaas ayaa amal saalix loo yaqaana ilaahina subhanahu wa ta'ala markuu dadka ka waramayay uu dhaartay oo casrka ama zamanka ama waqtiga ayuu ku dhaartay wuxuu yiri dadka oo dhan waa khasaaro wal asri innal insana la fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat yani dadka badbaadaya waa dadka amal iimaan laga helay amal saalixana leeyahay dadka inta kala khasaaray ku jiraan hadaan qofka amal saalixa laga helin amalka saalihahi shuruud buu leeyahay shardi amalka saalixa lagu yaqaan baa jira gaar ahaan shardiga loo yaqaan amalka saalixa in lagu aqbalo oo wax badan oo amal ah oo saalixa waa laga yaabaa dadku inay sameeyaan laakiin aan laga aqbalin maxay tahay sababku shuruudi amalka saalixa baa la waayay ka waxa ka amalka saalixa ilaahay dartiis in loo la jeedo al-ikhlaasu lillahi subhanahu wa ta'ala markaan salaatu kanayno markaan sadaqa bixinayno markaan waalid u asxaan falayno markaan wanaag sameeyno wuxuu doona ha ahaadee masaajid ka qayb qaadanayno masaakiin quudinayno dariska soo qaraaba salaamayno ama aan qaraabada soo salaamayno waxa soo dhan waa amal saalixa amalka saalixa wuxuu u baahan yahay ikhlaas ilaahay daraadiis in loo la jeedo haddaan ilaahay daraadii loo la jeedin maxaa dhacaya ilaahay bari buu ka noqonaya إلهي وحي سبحانه وتعالى حديث القدسية أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا دتك وحوذاية وحليس لو ذا شيء أنا غني بان كاهي قفكي أنتو عمل سمية أنا إلى وذا شيء عد كلا وهلو أمانه وحون هاللقاء الشيء سمية وأنسكتك يا إسقى وحى سمية عمل كيس فرق قاضي عد سمية وأنا يقول درا يوحو كهلها كهلا سيطالا سادرادت عملك صالح وحو باهن يحي الإخلاص لله عملك صالح وحو كلو باهن يحي شرط قلبات إن ونبي محمد عليه الصلاة والسلام دينتي وافق سنه شرع قال له وافق سنه هذا وحنا وتسكى ما يصنع عمل صالح عنكم مقعونه هذا عمل صالح من نقرأ سببك إلهي سبحانه وتعالى آيات هذا السؤال آخرين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وحكوحيقا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قف يوسف إلهي وعبادة السنة عدنا أسن لوداتشن أبو علي فضيل بن عياض منك اللي يراضه إنك وحا لقوري إنه يري آيات سمعنا هذه مركة وشرحي عملك صالحا وحا لقوضا ولا يشرك بعبادة ربه أحد أخلصه وأصوبه عملك صالحا وخالص تصن معناها قفك مركو إخلاص هي الصواب وحنتو آيتها إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل الله
وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبله الله هدو عملك الصواب هي أو طريقة وكتو سيهي أو صن خالصة هي إلهي ما أقبله إلهي درت عن لولجي هدو عملك أو خالص يهي لكن وصن صواب هي أو طريقة وصن كتو سنينه إلهي ما أقبله وحنا رجنا أنت وحوه لسه أعمالك صالحة ولا جربة أو مهمة أو عن قبولك كحرين لكن وحنا لا هي مركي عملك الله أقبله كحرا شروطه كم إذا قفل الإسلام يهي كذا إنه ده برامج شرط إسقى وحنا وقت تقدر مد وحوي ضدكوا ضد الإسلام ويا عملك أي سمينا يعني إسلام تنمدي وابلا جهله لبضع إن لجهله اللوبة هذا درجة وحركة صار waxyaabahan dadka gaalada ah ama hay'ad ha ahaadaan ama dad kale ha ahaadaan marka qaar kood wax qof muslim ah haduu sameyn lahaa ajir badan oo ka heli lahaa baa jira isbitaalay dhisaan wadooyin bay sameeyaan agoomay gacan qabtaan ujeedo kasta iyo wax kasta ay hoos jireen laakiin muuqaalka sare waa amal wanaagsan amalka wanaagsan ajir ku heli maayaan aakhir sababkoo ah iyagu islaamtinimadii bay waayeen furihi miftaaxi meeshii wax laga soo gali lahaa bay laayi والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء ما كسبوا لا يوحي قال الله أعماش أي سميان وحلم دي هي ضمبس أما مال بعاد أما وحيابا نوعاس وكراءه الضبيلة يتمي وكل بطي ويقاضي وهي عنيسة ويسيريسة فائدة ويكهن آخرنا مجرا تكبين آذن كاهي عملك صالح ينكر تكسيهم بالغاية الله oo qolana ay wax badan oo amal saalix ah samayso qolana ay meel dhexdhexaad tahay qolana ay liidato oo xoogaa hoosayso ilaahi subhanahu wa ta'ala maruu ka warka isaga ah wuxuu ku sheegay dadku inay saddex qaybood dadka muslimiinta ah faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrat dadka muslimiinta waa laga hadlayaa saddex qaybood baa loo qaybshay قفوا مقتصد بالخيرات واسكن حدحات ومرمرنا اخدادي سروا بدنتهي عمل وناكسن بدنا ولي ماذا مقتصد بالاراده بالخيرات عمل كيس حدحات قفنا سابق بالخيرات او خيرات هو هرمرا مركي خير لا شيغو لمركا كوادو مركي وراق لا شيغو قفك صفك كوادو صدقه لا بخينيا وا كو مساجد با لا بخينيا وا كو ولا اداي مساجد كسفك هرو جوغا محاضرات خير باجرا وابا كان بعد كما هريسو وابا سابق بالخيرات dadka isaga ah weeyrihi laakiin muqtasidka laga yaaba inay badayeen dadka ilaahay sheegay subhanahu wa ta'ala ma oo zalimun li nafsiha naftiisa dulmi wali waa muslimiinti baa la qaybinaya waa dadka dhuma muslimiin waa mu'miniin laakiin iyaga ba saddex darajo kala jooga midkii darajada koowaad oo saabiq bil khayraati aha iyo muqtasidkii dhexdhexaadka aha iyo zalim li nafsihi qof naftiisa dulmiya cibaadadku mar badan ka taga xumaantii iyo mar badan la yimaada iyo waxyaabihi ilaahay subhanahu wa ta'ala ka reebay waa muslim qofkaasi laakiin cisyaan iyo dambi baa ka dhaca wuxuu u baahan yahay qofkaasi inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala u noqdo dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu badiyo ayuu u baahan yahay qofkan muqtasidka dhexdhexaadka ahina wuxuu u baahan yahay inuu inta khayrka ah oo wanaaga ah haystano laazimo xumaantana iska yaray kan muqtasid saabiq bil khayraat ka hina wuxuu u baahan yahay thabaat sugnaan waxa la yiraahdo arki doono qofku amalka wanaagsan inuu ku sugnaado ayaa la rabaa asbaab bayna leedahay sababta waxaan ka tilmaami doonaa insha Allah bismillaah kan qofka haduu wanaag isku arko inuu ilaahay ku mahadiyo ayaa la rabaa subhanahu wa ta'ala waxaana laga rabaa inuu la yimaado asbaabtii wanaaga uu sugnaan lahaa iyo amalka saalixa uu sii dhiganaan lahaa maxaa yeelay bini aadanka qalbigiisu uu isrogid badan yahay nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku ducaysan jiray allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik allah qalbiga gadgadiyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diinta islaamka marka qofka uu amal saalixa iyo xoogaa wuxuu dardareemo naftiisa inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala intuu mahadiyo dadka xagga cibaadada kaga liita intuu fiirsho oo isiraahdo wali waxaan leeyahay dadka xagga cibaadada kaga sareeyo intuu fiirsho isiraahdo wali laga wanaagsan yahay inuu isiraahdo ayaa wanaagsan النبي عليه الصلاة والسلام وحو شيغي الإيمان 70 أو 60 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حديث عن كدريمنا مراتب عمل صالحة وكلا ليه هي
حديثك إمام مسلم باوريي وحليه النبي عليه الصلاة والسلام إيمانك ودور يتضباط أما ودور لحدا قيباض يعني دور لحدا قيباض بإيمانك ككوما وحا أسر يوم مرتبط أسر رئيس الجوجة لا إله إلا الله حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وحول أها أنيقا هي النبي دي يقول الرئيس وحي وقيمها بدنا أنكو هذا الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وكلمة قيمة بدنه ومالك يوقف كدو كسوع العشو وصن آخره خسارة هذا صن مرضا به وصن لا إيمان وحبرية عدلك خسارة معه وأنا فضوضه لا إله إلا الله محمد رسول الله كما دا سأوصل رئيس وحان وهو صيّة إمادة الأذى عن الطريق وسخذ أما الشيء بني آذن لبيه وودد اللي قال لي أياك وهو صيّة وفي رسول مركة لا إله إلا الله محمد رسول الله إمادة الأذى عن الطريق محا أدحية دور يتضباطا كلا دور اللحظة كلا أيا أدحية دور اللحظة كاسا قيبا ملك جدا قيبا ملك جدا قف baa laga yaabaa in dhowr iyo 60 kaas konton uu ka fargareeyo ama konton la yimi qof baa laga yaabaa 20 inuu haysto qof baa laga yaabaa 15 inuu haysto iimaankii waa la wada qabaa oo la isku haysto la ilaaha illa muhammad rasuulullah waa la yimi waa la wada yiri laakiin intii u dhaxaysay in la buuxiyo la qabaa inaga waxa inuu ku yar oo inuu ku sahlan oo ilaahay subhanahu nabiga kaleey salaatu salaam u sahlan oo uu sheegay waxa weeye wadada in wasakhda ama qurunka ama waxyaabaha laga leexiyo إنه واحد الله جاي أبا وضدي يبقى مدبكو هاي ناب وسخدي إن الله كان الله جاي أبا وضدي إلا جويا الله جاي أبا إن قرن كي وحي إنتي حافظ يقولي الله جا صاك حي وضدي اللي حلقة الله جاي أبا هل كي أهيد وضدي إن وسخد اللي جل حي إيمان كي كم يتهاي أي الله جاي أبا وضدي وسخدي اللي كاختر ويا رنتاس دي بالله في أنفيرنا وباهم تهاي وأن سكوت إنه النبي عليه الصلاة والسلام وحول شيء قف وحول جنة كو قاضي laan yar oo qodaxa oo wadadii ku soo baxday uu ka leexiyay sida daradeed baa ilaahay ugu dambi dhaafay jannada ku gal riwaayadka qayb kamid waxay sheegaan qofkaas inuu qof dambi weyn la ahaa haweeney zaaniyada ama waxa la midka ama qof dambiila oo ahaa ayaa la sheegaa riwaayadka qayb kamid waxay sheegaan in qofkaas inuu kalbi u waraabiyay oo ku gal si kasta ha ahaatee qofkaas sababku waxa jannada ugu noqday wuxuu ahaa isagoo wadada maray wuxuu arkay laan ku soo baxday wadadii qurac macnaha qodax leh الله إلهي وحي يصير وضعة عن كل حية لعنة صين المسلمين تقولين لا أنت مكلحش إلهي وأودم بدافع وجنة صاحب كلام بدم بدافع وكله سبحانه وتعالى مركا عمل كوين أي بني آدم كوده فائدة سنة يؤجر كيس وين يهي وحكا أجر بدن يهي عمل كخاص كعضوات قبضتنا مركا غارك واجباتك يا فرائدي لابد مركا كسوة بحضه أعماشك الصنع كاهي وحيابها مستحبات كاهي ومندوبات كاهي النوافش وحيابها الصمياش متبومتك ومدة وقنع في بدنيا هيبا كقيمة بدن ساسا أردت قيمة بدن تاعي وحكم إذا عمل كصالحة هي لا ينحصر يعني ما سو كوبيك وحن كوبيك إنه ما هذا أنا عمل صالح ما أنت عوض لا يهضله أما قلبتها لا يهضله ما كوبيك إنه marka waxyaabo badan oo aan sameeyno amalka saalixa ay ku jiraan waxyaabo badan oo aan sameeyno amal saalix ay ku jiraan waa inay ka maqan yihiin مثلا salawaadka shanta ah oo raggu ay gaar ahaan raggu ay jamaacad ku tukadaan amalka saalixa dumarkana waajib laga ma dhigin masaajid ku tukadaan gurigooda ay ku tukadaan oo ay waqtiga ilaaliyaan amalka saalixa waliba acmaasha saalixa kuwa ilaahay ugu jacayl badan yahay uu kamid yahay salaad أحب الأعمال إلى الله أي كم تاي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نبأ ويم أو ويدي إلهي رسول كسيو عملك إلهي كيبو وجعل بدنيا نبي محمد جوابي الصلاة على وقتها والصلاة وقت تكذو يعني صلاة وحرير كقفك بن آدم كي الله اسكو حريو كذا حية قفك أنت وصلاة كنيو أنت وصلاة وقت كذا إلى لنا يو حريك الله سبحانه وتعالى كما قلنا لكن ما لينك وصلاة ضيعه شيطان بقى عن هذه انقطاع بانا كل عيا أو كلا قايا استجى الله حريك ودحي قايا سعد رادت تكتب لي يرتاح أو رجع يضمر بقوليها إنه جوجا وحلاقي يا بعض ضيع بدن أو صلاة ده إنه كجره والدين تونا مسؤول كا مرة أنت مسؤول دحي كله إنه كبر رجيان
inay u sheegaan inay la socdaan xaalkooda xilliga uu ilmuhu guriga imaanayo salaadii ma soo tukatay la waristo oo calaqal xilliga tuka xataa dil yara wax dhan way yuusan masaajid ku soo tukan oo waqtiga hadduu soo dhaafay insaa looga tagayo micnuhu ma aha oo gabdhaha qaan gaaray oo guriga inoo jooga oo yar yar salaada inay tukadaan baa la rabaa oo nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam ilmaha marka uu 7 sano gaaroba in salaada la amray toban markuu gaaro in lagu xanuujinayo waa lagu hanjabayaa waa lagu macna xanuujinayaa inuu salaada tukado deeshay toban haduu gaaro waajib bay ku noqotaa ama siyaabo kale badan oo lagu qaan gaaro baa jiray oo qaan gaaro waajib bay ku noqonaysaa marka waxa laga yaabaa gaar ahaan gabdhihii guriga joogay xilliga ay qaan gaareen inay gaareen wax badan oo san waalid ku hayn arintaas aad waxa ugu doon daloolo hooyooyinka la rabaa inay arintaas ay aad u sii tixgeliyaan oo gabadhii way qaan gaartay warna lagama hayo hadii la doono waxaan gaari karnaa gabadh dhiig caado ka yimaada ku qaan gaarta waxyaabo kale dadii oo xilligii la gaaray ay ku qaan gaarta hadii arrimahaas ku yimaadaan in dad badan inay ka warhayn baa laga yaabaa laakiin hooyadu inay baarbaarto arrinta ka warhaysa laga yaabaa soonka iyo zakada iyo waxyaabahaas amalka saalixa bay kamid yihiin birruka bil walidayn wa ihsanika ilayhima walidka oo loo baarinimo sameeyo amalka saalixa bay kamid waliba amaasha saalixa kuwa ugu horeeya nabiga kaleey salaatu wasalaam markii uu yiri as-salaatu ala waqtiha wuxuu ku xajiyay maxaa ku xiga baa la yiri amalka ilaahi jecel yahay salaada kadib wuxuu yiri birrul walidayn walidka oo baarinimo loo sameeyo walidka oo baarinimo sameeyo zamanada tan way si yaraanaysa baarinimada waalidka waxa kamid ah wax allaale wixii wanaaga aad u heli karo inaad ka hakran wax allaale iyo wax dhiba adigu inaad u geysan hadda ogtahay inay soo gaarayso inaad ka hor istaagto wanaag intaas wanaaga waalidka loo sameeyo intaas ku koobay wanaag in kasta hal eekaado adigu aad u sameyn kartid ama asaab ugu noqon kartaa ha ka hakran ku dadaal ina wanaag u sameeyso maxaa yeelay jannada nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam tahta aqdaami al-ummahat hooyooyinka agtooda hoostooda bay jannada ku jiraan yani hooyadu way ka xaq badan tahay aabaha saddex jeer markii ay ka xaq badan tahay marka afraad bay hooyadii aabuhu xaq wadaagaan isku mid maaha hooyadu ka xaq badan tahay marka xaqi hooyada iyo xaqi aabaha labaduba adiga xaq ku siman bay kugu leeyihiin hooyadu xaq badnaato laakiin mid walba xuquuqdiisa in laga soo baxaa la hadalka in kor loogu qaado lama ogola hadalkooda hadal ka dheer inaad tiraahdo lama ogola iyaga oo taagan inaad fariisato lama ogola hatta marka waa soconaysa inaad ka hormartaa ma fiicna ama dhinac socon ka dambeeyo ixtiraaman waa waalidka intaas wuxuu arkay marka timaado imo shumay ogow guriga hadii aad wada degan tihiin adoo aan iyaga soo marin ha gelin qolka ka warhay xaaladooda ka warhay waxay cunayaan ka warhay xaalkooda ka warhay waka waalidka nabiga kaleey salaatu wasalaam dad jihaad aaday buu ka reebay dad xaj aaday buu ka reebay yani waxyaabahaas oo dhan waxa ka horeeya waxyaabaha acmaasha caamka xaq ugu horeeya ilaahay kugu leeyahay xaq ku xiga waa waalidka waxa kamid ah qaraabada kale in la xiriiriyo oo qaraabada kale eedooyinkii habaryarihii adeeradii abtiyaashii walaalihii ilma adeerta qaraabadii kale in la xiriiriyo iyaduna أرين أعماش صالحة كم ضوي النبي عليه الصلاة والسلام حديث بوح كوري من أحب أن ينسأ في أجله ويبسط له في رزقه فليصل إلى رحمه قفكي جعل إن أجر كيس دب له وقوله أو آخر أجر بدنه ورزاق ديسة لا واسعيه أو أجشي سئي جري معناه عمره صلى الله بركيه أجشي صلى الله دبلغه قرابة صاحبه رزاقدي واسع نمديدي با كخيران قرابه خيرينتي عمري إلا بركيه با كخيران قرابه خيرينتي وقف waxa laga yaaba haduusan qaraabadiisa xiran cimrigiisa Allah u barakeeyba soo iska dhalinyaro iska soo qoobi waxba isaga iimaan waqti uu ka faa'iideysan la yahay ama si cimriga ba Ilaahay wuxuu ku daraaba haba suurta kale iyada culimada qayb ba ku fasir oo cimriga waxa laga yaaba qaybina ajal musamma bay leedahay oo aan la dhaafi kara qaybna waxay muallaq qaybta mucallaqa ku xiran oo laga yaabo qaraabo xiriirintay waxa la midka in ku xirantahay in qofka loo kordhiyo waa laga yaabo ama si waxa laga wadaaba leeyahay amrigiisa loo barakay intiisa Ilaahay ku faleysiya 40 sano hadii amrigiisu yahay kaanama isaga oo 80 sano qof jiray amal uu qabtay buu qabanaya amid adduun ha ahaado mid aakhira ha ahaado
إلهي وبركينا يا مالك سال الله وبركينا يا وقتك سال الله وبركينا يا أولادي سال الله وبركينا حاسك سال الله وبركينا يا زوجك يا نينك الله وبركينا يا هدي قبرتها وكا مركا قرابة الله حري عملك صالحة بينك كم ينتهي وحياة أمهم سن بينك كم ينتهي وحكم إذا درسك وناقنا الله سمي عملك صالحة كم ينتهي حماهنا لقداي النبي عليه الصلاة والسلام وحو شيء إن أويلي وحان جبريل دردارا كدرسك يوسع العشي مضبطا إلا أن السري مركز دم وحو أران دونا درسك واسدحلان يعني حق وكله مركز أركي ويشيء جبريل يشيء درسك حق إسكوليهين وحان بيصير مركز دم أمو يرى هذا لبدا درسك واسدحلان سيدا وشرع الإسلام كو بلشو ولا صعطه بيتحق لسان بلشو إسكوميدا بيستا qoyska laga soo bilaabay iyo qaraabada waa inay wanaag u sameeyaan xumaanta kala ilaaliyaan dariska lagu xajiyay waa inay wanaag u sameeyaan xumaanta kala ilaaliyaan maxaa la rabaa daris iyo markii ay arintu soo gaadho bulsho weyn ba imaanaysa bulshada weyn marka qof walba dariskiisa haduu qiimeeyo qof walba qaraabadii haduu qiimeeyo ummad wada toosan baa soo baxaysa yani bulshada waxa rabaa inay wada wanaag islaatu laakiin wanaag waxa la rabaa in laga soo bilaabo hoos naftiisa ehelkiisa قرابتيسا درسكيسا وما تاكلوا مجتمعا نبي وحو شيء صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يا نبي اللي قوريي إنه يري قفك إلهي إيمانك آخر الرمي فليحسن إلى جاره درسكيسا هو سما فليو هو سما فلو وانك هو سميو وحو كلو النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه إيمان مله قفك أن درسكيسو وسن كم جنجل شركيس إيمان مله يعني واحد إيمان أو ليه هاي مجر إيمان لما يستر ما له بعلم لكم يستر إيمان كيس صحوا كده مناقص ويه قف كان درس كوسن كان ما يرهم درس مركب وحلو باين هدية من لو جيو وحلو باين لبريدية صلاة تكلية صبح مركب سوى بعث أنا قلت سوى بعث والمحل لو بريء وروا الله ظنها إلهي الهديس خلاص أنت أصلا كفر حتى دور صبح والبعض صوب بريسو يجونا يقفك كلا صوب بريديانين وروا درس خير قبها وأركاور هيابو كورن لكن هذا ولقى بعد وتي وركاس ما إسك حجناية ما بقى إسنقانه حبنا جمع دحية وهذا السلامة النبي عليه الصلاة والسلام وقف درس كأهي هذو مسلم يهي وقرابي يهي سد حقوقات بولي هذو مسلم يهي أنا لا بحق بولي هذو صن مسلم بقى هين حتى وقال يهي وقف درس ككلاه حق بولي وفيرسو وقال هذا واحد دينا ولا تاني مجرى واحد قرابة ولا تاني مجرى محا إذا كان دحية درس نمد لأن دينتو إسلامكو ما حرم ما أقدر ما صار حرين وقف كان تعامل بعد كده حين كده درس واي وحبا إسكاكين قلي كره ضدك إذا درس كآتيين معامل كيسينا وناجسان ويقف كمسلم كهو قرابة إسلام تنمدي قرابة نمدي يدرس نمدي ما أنا كده حيس قف كمسلم كه دائما النصب كيسجسو دوينا وحنا كده حي إسلام تنمدي يدرس نمدي ما دام ودرس أنا ليه مسلم ليه قف كأن مسلم كباهين أنا إن كده حين محاهيت قرابنا إن كده حيننا إسلام تنمد أنا كده حس إن عن صبيحي عن كور حينه إن عن حال كيس أجنهي تقف كمسلم كأهو قال كأهو دولة الإسلام ككل حنال أو أي نبت جليد دولة الإسلام كسيسي معهم البان كده إحمر كره وان كور حين كرنا يونا وين كور حين كرنا ساسا لو باهي هاي درسكم marka heerkaas uu gaarsan ilaa inuu qofku isoo gaal la xiriiriyo nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu sheegay markuu dumarka la hadlay gaar ahaan wuxuu yiri la tahqiran najaratun bijaratiha yani haweenay daris hadis macna sidaas aha haweenay daris ah gabadha kale oo dariska la tahay aysan ka xaqirin in ay wax u geyso walaw firsan shat neef yar ah oo ay qalatay umaacumteed ama jeenigeed baha ahaadee يعني قفنا هذا قنجافل أما وجيسا وحلا جاي وحوجا أنا أبوك حصاته لكن درس كنا نعنك ورها الصباح لجها الله أنا توصل عن تعلق الكلية هذا وحبة ترى أنا مركز سفر كنت ما دوحون هدية ده هذا سيجيسو النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وروح يسوع هدية واستعلان إنسانه وحكم ذا وحيابه وناجه صلاة إن لفافيه وتقول السلامان وقفك هوري ما السلام عليكم أتراهي dadka in cunada la qoodiyo oo cunada la siiyo oo macnaha masaakiinta iyo wax la midka salaatu leeylka intaas oo nabiga kaleey salaam xadiis buu ku sheegay uu leeyahay afshu salama wa at'imu at'ama wa silu al-arhama wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam nabiga sallallahu alayhi wasallam wardad yahow salaanta faafiya
markii la yaa salaamaynaana wuxuu nabigu calaa man carafta wa man lam ta'rif qofka garanayso iyo qofka aan garanayn basalaam assalaamu calaykum kaliya hadda tiraahdo oo qofka tiraahdo assalaanto waa isku jeclaa salaanta hebel salaanto dadku waxay yiraahdaan Soomaalidu markii qofka ay fogeynayaan salaanta iskama qaado salaanta nagama dhaxayso ilaa ay gaarsiiyaan marka qaarkood inay yiraahdaan salaanta muslimka iyo gaalada nagama dhaxayso yani muslimka iyo gaalada hatta salaanta ka dhaxayso taasi anaga hatta nagama dhaxayso marka salaanta waa wanaagsan tahay iyo wa at'imu ta'am cunada la qoodiyo marka qaarkood waxa laga yaabaa dadka dariska ah qaybtood inay xoolaha xaaladu kulliyato dadna ay cunada daadinayaan oo meel noloshoodu ay fiican tahay marka qaarkoodna israaf ay ku dhow yihiin ama khatar u yihiin ama ay ku jiraanba waxaas la daadinayo intii wax la miisaamo dariska in laga warhayo ayaa wanaagsan reerkan waxa laga yaabaa cunadii dadku inta badan ay yaqaaniin oo maxay tahay tacaarufka iyo caadada isu dheelitirayd oo dhowrka nooc ka koobnayd qayb kamid ah inaysan haysan maanta baastadii baa ka go'an ma haystaan ma soo adeegan karaan maanta raashinka kale waa haystaan maanta saliidii baa ka go'an baa laga yaabaa saliida kiila saliida in loo geeyo iyo oo laga warhayaa hadii dadkii cunadiina waa qoodintiina way tahay oo ajarka waa lagu helayaa dariskiina way tahay hadduu qaraabo yahayna hadda qaraabo xiriirin baa lagu helayaa marka waa at'imu ta'am cunada in la qoodiyo waaye wasilu arham wa kasoo hadalay wasallu niyama salaad tukada wasallu bil layli wan nasu niyam nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam habeenkii tukada dadku hurda arintaasi arin ajiibo waana dhaqankii anbiyada nabi maxamed alayhi salatu wasalaam iyo nabiyaasha ka horeeyay waa dhaqankii dadka saalixiinta inay habeenkii kacaan oo tukadaan walow rak'ada ha ahaatay hal rak'ada laba rak'ado saddex rak'ado salaatul haddi hal tukado marka la yiraahdo ka qaybto waxa laga maskaxooda inay ku soo degdegto koob iyo 10 rak'adood juz in lagu tukado xisbi in lagu tukado waxa soo dhan waxa kaaga filan markii aad hatta calaqa wax kale hadaa sameyn weydo cishaha marka tukato oo cishaha laba rak'adood oo sunnaha cishaha aad raacsiiso hadda saddex ragcadood oo witr tukato oo aad saddex suuradood ugu yar ku tukato ajarka salaatul leelka waa helaysa qasama qof ruux baan tukato waa marka cishaha tukat oo aad laba ragcadood sunnaha la timaad meeshii aad inta ku tukatay hadii aad laba ragcadood saddex ragcadood oo witr la timaado ajarka salaatul leelka waad helaysa qof salaatul leelka tukaday ayaa la mid maxay nabiga kaleey salaatu wasalaam abu hurayra nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri waan ku jeclahay saddex arimood baan ku la dardaarmaya ha ka tagin saddex arimood ama se wuxuu yiri xadiidka afwan xadiisku wuxuu yiri awsani khalili ninkan saaxiibka ah nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu ii dardaarmay saddex arimood waxa kamid ahay inaana seexan illa aan witr la imaado yani abu hurayra wuxuu ahaa nin cilmiga iyo waxaas aad u daneeya marka xoogaa uu caweyn jiray hadduu seexdona waxa laga yaabaa in isaga salaatul leelka iyo ka dibdhic lahayd nabiga kaleey salaatu wasalaam uu ka warhaya xawaashiis marka wuxuu yiri markii aad cilmi baristaada iyo macnaha mudaalacadaada iyo cilmiga aad muraajacanayso aad dhamaysato oo aad hurdada isu diyaarinayso ha seexan ilaa aad witr tukato witrka culimadu waxay yiraahdaan hatta hal ragcada ku filan qofka hal ragcada ركعة واحدة حين قاعد ناس دقيقة لبا دقيقة هبينك waxa laga yaabaa wax badan inaan soo jeedno oo wax kale ku soo jeedno laakiin saddex ragcadood oo salaatul leylki ajarkiisi aan ku helayno haddaan 5 daqiiqo siino kaliya ajarkiisa salaatul leylkan helayna qofka ka sii badin karaan ahlan wa sahlan waxa ka sii fiican mid ayada qofku intuu habeen markii mar uun kaco oo ilaahay subhanahu wa ta'ala xilli uu soo dego baa jira oo sanada koowaad uu yimaado oo uu yiraahdo wariya ay baryayo aan wax weydiista wariya ay dambi dhaaf weydiisanayo aan u dambi dhaafaa wariya wax magan galayo aan magan galiyaa ilaahay dhahaya subhanahu wa ta'ala habeen kastana waa yiraahdaa ilaahay subhanahu wa ta'ala yaa ay baryaaya oo aan baryadiisa siiya yaa wax iga magan galayo oo aan magan galiyaa yaa wax i weydiisanaya oo aan wax i weydiisto siiya arinta ayada ay marka nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam habeenka saddex meelood oo laba meelood marka ay tagto ay meel harsan tahay waa 8 saacna waxaan u naqaan wixii loo gaaro ayay waqtigaasi bilowdaa ilaa inta waa uu ka baryayo qofka hadduu mar uu intuu kaco laba ragcadood saddex ragcadood tukado ama 5 ragcadood khasam ma hasan sheegno quraan badan ku tukado laakiin quraanku ka badan yahay hadda waa ka sii ajar badan yahay ragcadu hadda inta dhaafaan oo saddex noqdaan oo 5 gaaraan waa ka sii ajar badnaanaya
shan haday gaar dhaafaan oo 7 gaaraan oo kasi ajar badnaanayaan 9 ilaa 11 nabi 11 ma dhaafin jiray sallallahu alayhi wasallam 11 ragcadood ma dhaafin jiray marka qaarkood riwaayad 13 bay sheegaan laakiin 13 kaas waxa la yiraahdaa laba ragcadood oo kale oo ragcatul wudu ama ragcatu qabla al-fajr iyo waxa lagu daraa laakiin 11 ragcadood saas nabiga kaleey salaatu salaam aha 11 ka ragcadood ayuu tukan jiray hadii marka qofka xataa uu fiidkii ka seexdo labada aadaanka hore marka la aadamo intaan aadaanka dambe la gaarin haduu wax yar intuu ku hormaro 20 daqiiqo 15 daqiiqo intuu kaco salaatu leelka tukada uu ka gaaro uu heli kara waxaana uu fiican nabiga kaleey salaatu wasalaam oo aakhiru umrihi uu sameeyay in salaada habeenka xilliga dambe uu salaatu leelka tukado marka qofka laba mid weeye haduu ka baqaayo uusan kacayn salaatu leelka hore ka tukado cisha baa tukado haduu bacda cisha meel iyo uu masaajidka ama hawliyo shana markuu guriga yimaado oo uu seexanayo oo hordada isu diyaarinayo xilliga halay ha tukado sababtoo xilligaas dhowr arrimood baa ugu jiro waxa kamid ah in soo wasaqaba laga yaabo inuu seexday waxa laga yaabaa isagoo oo amalkii ugu dambeeyay ilaahay xiriir uu la sameeyay ay ahayd oo isagoo salaad tukaday oo ugu dambayso inuu seexdo oo qofkaas haduu xataa habeenkaas ku dhinto ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr baa loo rajaynayaa khaatimo wanaagsan isagoo wasaqaba oo amal ugu dambeeyay uu ahaa salaad uu tukaday ayuu qofkaas seexday al-islah bayna nas baa kamid ah dadka masaakiinta ah oo loo gargaaraa kamid ah kelmadda wanaagsan baa kamid ah amalka saalixa kelmadda wanaagsan wax kasta ay noqon kartaa oo qofka afkiisa ka soo baxo aan xumayn nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu inoo jiray adkaar tira badan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar xilli ay ka xirantahay ma jiro hadaad soconays fadkurullaha qiyaman والذين يذكرون المؤمنين تلا مركز شيكين وحي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه تكسر يراه المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والارض معناها ذلك المؤمنين تا الهي سبحانه وتعالى ادو وذلك الهي كعبس وذلك الهي حص هد يجير هدي تاغيهين فديان هدي جيفا قف صدخ حاله مid واي ام واتاغيها ام وافديان ام واجيفا intaas baadkaartu way sahlanta tahaara kuma xira rag iyo dumarba qofkii inuu daahir yahay kuma xira qofka hatta daahir uu sanahay oo gabadhii aysan daahir ahayn adkaarta way la iimaan kada alxamdulillah bi daldali subhanallah wala ilaha illa allah wallahu akbar hal ogaado adkaartu qofka faa'iidada badan ay leedahay waxa kamid ah qofka cibaadada kale u fuudaysa arabkiisa barta oo haduu qofku xanuunsado ama uu wax si ka noqdaanin adkaartii buu jeclaysanaya oo ku hadrinaya haduu qofku naftu ay soo qabato adkaartii arabkiisu la qabsanaya oo khaatuma waxay leedahay khaatuma wanaagsan iyo xusn khaatima bay leedahay adkaartu difaac bay u tahay qofka muslimka ah oo adkaaru sabaax baa jira adkaaru masaa baa jira adkaaru nawm baa jirta oo marka qofku uu seexanayo uu la yimaado adkaarta qofka haduu akhriyo hadee balaba ma ku dhacayso waa xir sixiran yahay waxa kamida agoonta oo ikraam iyo wanaag loo sameeyo waxa kamida masaajida oo la dhisaa waxa kamid tahay amalka wanaagsan waxa kamida qofku in uu qoraalkiisa iyo qalinkiisa iyo barihiisa warbaahinta oo ka qayb qaato dacwada maanta waxa jira bara la yiraahdo social media wax loo yaqaano ama bini aadamku ay ku wada xiriiraan oo tiro badan oo telefoon laga isticmaalo computer laga isticmaalo waxyaabo si badan loo isticmaalo baa jira waxyaabaha iyaga ahi sida aynagu caadiyan aan isugu gudbin karno waxa wanaagsan oo aan si toos oo kafool isugu gudbin karno ayaa waxa la isugu gudbin karaa waxyaabahaas oo qof kasto aad taqaano iyo mid aan aqoon ba hadaa maalintii 3 kalmadood oo aad baraha bulshada dhigto oo dacwo ah oo ilaahay in laga cabsado oo qofkii hadii soon jiro sunna aad xasuusiso oo aad dadka salaada ku booriso 4 kalmadood 5 kalmadood hadaad maalintii baahiso waxa laga yaabaa 20 qof 30 qof inay ka faa'iideystaan 30 qof adiga ajar bay ku noqonaysaa oo qof kasta oo amal wanaagsan aad tusto oo ka faa'iideysta ajarku uu helay isaguna ayaad helaysaa khayrka iyo wanaaga in la faafiyo bini aadanka iyo mujtamaca dhisitaankooda in laga qayb qaato waxyaalahaas waa amal saalix yani amalka saalixa boqolaal buu gaaraya tirana ma laha qofka muslimka in la baraarujiyo ama wanaagiisa laga qayb qaato amalka saalixa bay kamid tahay waxaan u gudbaynaa wasan koobi doonaaye amalka saalixa ahi wuxuu u baahan yahay inaan daa'imino
waxaasoo camal oo saalixa waxaa laga yaabaa dadku inay inta badan sameeyaan waxaa laga yaabaa inaan wax yar ka samayno waxyaabahaas marka waxaan u baahanay inaan daa'ino oo joogtano ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay camalka kan la daa'imo haba yaraade waa in qalla nabigu suu sheegay sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam camalka qofku wuxuu jecel yahay uu daa'imo hawdana haba yaraade xadiidka nabigu wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam ha isdibinina oo naftiina ha dhibinina oo camal badan ha samaynina idinka oo ka daali doona hadhowdii maxaa yeelay ilaahay ajarka iyo wanaaga idinka dayn maayo ilaa idinku noqtaan haddaa 3 habeen walba aad isku tukato oo habeen walba 12 ragcadood tukato oo inta kale ka tagto faa'iido badan ma aadan helin maxaa dhaanta habeen walba 3 ragcadood tukato aadan ka tagin marnaba habeen walba 3 ragcadood tukato haddaa taro khamiis walba waan soomayaa ama isniin kasta waan soomayaa maxaa dhaama waa hadhowda ka tagto waxa dhaawayna bishii 3 bari kaliya ka soonto soonku waana caafimaad waana sunno inta badan laga yaabo dadku inay ka tageen oo faradka kaliya la ilaasho iyo wadaca laakiin waxa loo baahan yahay khamiisaha nabigu waa soomi jiray isniintana waa soomi jiray wuxuu kaloo nabigu dadka kula dardaarmi jiray in ay bishii 3 bari kaliya ka soomaan qofku bishii haduu 3 bari kaliya ka soomo wuxuu la mid yahay qof sanadka oo dhan soomana macnaha maalin walba adoo sooman ajarkeedii baa lagu qurayaa waliga inta jirto waliga inta jirta maalin walba qof sooman ajarkiisa helaysa maxaa yeelay 3 maalmood aa soonto maalintii waxay u dhigantaa 10 bari maalinka kalena maxay u dhigantaa 10 bari maalinka kalena maxay u dhigantaa 10 bari 30 bari baad haysataa qof soomay oo kale bil walba marka aad 3 bari ka soonto bil walba adoo soomayo aan ajir baa helaysa waliga waxa ku soconaya soon joogta soonka joogta wuxuu kugu soconaya inaad daa'imno oo aan joogtayno marka amalkaas daa'imka ah wuxuu u baahan yahay waxa jira wasaa'il waxyaabo qofka uu sahlayay inuu amalka daa'imo wasaa'ishaas dul mari doona wasaa'isha waxa kamid ah qofka inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka hore weydiisto oo gargaar weydiisto inuu ilaahay amalkaas ku hanuunka ah oo ku hagaajiyay inuu daa'imsiyo oo uu waafajiyo waxa kamid ah qofku al-azima sadiqa wa tawakkul inuu qofku go'aansado inuu soo waxa ka tagi sidaba go'aanku qayb kamid ah weeye nolosha iyo yoolka waxa lagu gaaro nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa la yiri fa ida azamta fatawakkal ala allah markii aad go'aan gaarto ilaahay tala saarso yani ilaahay ma tala saarsanaya wax go'aanana ma sameeynayo oo qorshe iyo madagara soconayso nabiga kaleey salaatu wasalaam baan siinaya soo waqti soo kooban yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam habeenada kamid ah naqaano isra wal mi'raj baa la dheelmay makaa laga kaxayay baytul maqdis baa la geeyay intaas oo bilood baa bil iyo wax ka badan baa loo socdaa waa la kaxayay samada la geeyay oo hadda dadka dayax gacmeedada ku aada ay yiraahdaan intaas oo bilood baa meeshan dhow lagu tagaayo dayax iyo waxa la midka samada warkeeda gada todobada samaa la dhaafiyay isla habeenkii gurigiisa lagu soo ceeshay intii la mariyay ilaahay wuu awooday inuu saas sameeyo Soomaa awooda ilaahay baa iska lahaa waxa dhacday gaalo inay ku soo duushay nabiga kaleey salaatu wasalaam inay yiraahdeen waa dilayna kooban ka siinayna in gurigiisa lagu soo weeraray saan ogna hijrada baan ka hadlaya in uu habeen intuu gurigiisa ka guureeyay inuu yiri wax diyaarsaday dad diyaarsaday nin gaala kireystay god 3 habeen ku jiray Maka iyo Madiina inta ka dhaxaysa uu socday oo soo ilaahay ma awoodin markii hore Maka ka qaaday oo 7 samo meesha u sarreeyay geeyay gaalada markay nabiga weerarka ku hayeen in intii Maka laga qaado Madiina la dhax dhigo waa awood ilaahay subxaanahu wa ta'ala gabigiisa gaalaba ay sabaragba way soo ceyrsadeen way arkeen isku mashaakil 3 habeen bugod ku jiray nabi Abu Bakar oo la socday bahal baa qaniinay mashaakil baa ku dhacay waxa loo dan leeyahay nabiga waa la dheelmay shalay maanta Maka hadii laga qaado oo la geeyo Madiina maxaa la oran lahaa nin kasto oo xaq ku socda wuxuu oran lahaa aniguna ilaahay gargaarkiisa baa sugaya meel baan iska fadhiyaya arintu islaama qofku uu socod asbaabta liimaada la rabaa nabiga asbaabtii buu leeyahay asbaabtii baa lagu amray inuu leeyahay asbaabtii uu ku badbaadi lahaa gaalada kaga carin lahaa cadawga kaga carin lahaa ayaa la yiri la imaw qof kasta oo bini aadan asbaabta waa laga rabaa si uu u gaaro hadafka ujeedada uu leeyahay marka waxaan raahno azimada iyo tawakkulka waa isla socdaan hadaadan azima aadan la iimaan ilaahay baa tala saarsanaya wax soconaya ma ilaahay tala saarso fa ila azamta
فتوكل على الله قوان يقرش قار إلهي نترسل سيدنا مركز كهجة مركز حنو بحنا عمل صالح عن هينو إن قوان قار معاه وحي كتب بينا الناس تحرق عضوت وكذا ولقي دافع ميسو صدح عضوت وغيران وصلاة الليل أنا ولقي يجتجي ميسو وأنا أركب دونا ضد صحابة السلف في كم إذا وحي سويدين جرين ولقي أنت أنجري صلاة أرولية جماعات وما دافع وحياة يسكون حجي سنجري يعني أنا ولقي أنت أنجري صفقة هراء عد صدن سنة فرتن سنة ولقي صفقة هراء كنت كناي ولقي أنا وسقبين لما آدمين ولقي أنا مساجد جوجين آدمكم مدعين ها قبلنا وحال الرباع ولقي آدمكم روسا دعين بقى إلا يضو ديار سنة وحجاب بدأ قبته الصلاة والديار معه إن أنا نقول عن صنّا صدق رجعوا صنّاعنا هبين والبتو كنّو دبنا بقى إنه كتجي إن أنا نقول عن صنّا بيرول بينا صدق معلومات كصنّا دبنا بقى إنه كتجي إن أنا نقول عن صنّا حوار يركع عمل كصالح أنا هاي صنّا مرضاً بين إن نسيدين عزيمة قان أنا قارنه وحكم ذا الاقتصاد في طاعة قف طاعة إنه دحدحات كنا قضاه كنت وارمهم وين عبادة عن سمينا إنه إن نسيد دحدحات وسمينا وإن كان بدين يرينا maxaa yeelay cibaada hadii laga badbadiyo astiraado saddex bari miyaa li caaw maanta lagu soo wacdiyo soomeeya anu waligiiba khamiis isniin baan soomeeya hadda tiraado de khamiis isniin ku wadi meeysi cibaada inta dhexdhexaadka sadidu nabiga calaysalaatu wasalaam war dhexdhexaysta oo taqaarab cibaada dhadhaweysta oo ha ka badbadinina hadda ka badbadisaaniin ilaa aad idinku noqtaaniin ilaahi subhanahu wa ta'ala idinka noogi meeyo oo wanaag buu siinaya marka iqtisaad fi taa'a waa muhiim عبادة إن دحدحاده أو عن بدنين يرين للي ماذا أو ميل دحاه وحكم إذا الكتار عن مجالسة الصالحين تذكر الصالحين تاه يذكر وناكسن لفرد جود إن لبضيه أسباب تعمل كصالحة قفك وكسي جوكتين كره أو عمل كصالحة وكسي ودي كرابي كم يتهاي تذكر وانا ماشي وانا بيالله تتكون وناكسن إن هذا يجر لفرده أو صحبة الصالحة أصميسته لكن إذا تروح هذا لا صاحبته ويهسي قلنا يعني عبادة كاتبة يعني عمل كصالحة وكاتب دقيقة وحكم إن هذا يجر موت كي يجري حسوسنا عنه هذا يجر هذا موت كي يجري حسوسنا هاي عمل كصالحة وجوكتين كنا وحكم إذا إن نضتك الصالحين تهاي نكهري السلف كي ذلك عبادة بدنا تاريخ الوضع آخر سنة أبي بكر عباديس عمر عباديس رضوان الله تعالى عليه نبي محمد بأنت دان كقيمة بدنا عباديس نبي عليه الصلاة والسلام في رسول صالح نجيبين كاه نبي حاسق سيميت كم يذبو فري نبي عليه الصلاة والسلام حفصة يا لورنج بنت عمر وحي فوق 7 سماوات كسود دقي نبي محل ويري حفصة وين عشتها وين تكون نقطة صومكم محوية هاي فإنها صوامة قوامة وقبر صوم بدن وصلاة الليل كيسو تاكته عشو حفصه ما فريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لوي وفرس قيمها أنت الأكتر هواري هاسي إني محمد كل نقضاه أو أي عسمة يدا أي هاتو أو أي آخرنا الزوجات كيسا كدر سناته محيكم متيستين لهواري سوام وحالي رادا وحالي رادا قف أمرنا بكتين صونك يعني صائم بالوران لها وهواري صون تحبا بالوران لها لكن محال يري وهواري صون بدن صلاة الليل نتوكشدنا يكون بدن طح محال رأى مركا تدكي هراء السلف كاها إلى حفصة عائشة إيو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيو إن هيجسنه أو أنا وسوي عبادة سنجرين هبين كنتي سو جيد جرين قرآن كسو آخر سنجرين هيكس إن الله نهاي وضلك الصالحين تانكو ضيانه وحكم إلهي ذكر جيسا إن بدينه استغفارتنا عن بدينه وحيابها كمتك عمل كصالحة أنا هاي صنو إنان كل الجنان وصلنا كفكن وبس كجري حواجة عن هاي صنو الدون بقينا مشغولين أولاد قولي يحنكم مشغول صنحي زوج يهول كلا يقرابي وحبها الكيالة دمركو ذاتك أو عبادة يروي وحكلنا معها ومضينا كعباديهن معها مشغول كوابض وأمركم بري شقد بلا ساعة أصدق ساعة بني مكسو جالس أو شقيس قولي وشقيس طلابقات كن قات لكن جدول أنصم يصنع جارة وعبادة يعمل كصالحة أو جارة أو أين مرنا بكتي حلقة هذا سوغاري حلقة أذكارته ميل إنا تقنو بقول القرآن سبحان الله إن رحمه هوش أنا كان أسكف سنة لما ساعة كدي والحلقة بقى سوغاري أنا بقول لا إله إلا الله ده وربشي ميقان صون ليه أنت أصلا ليه هبينك ميقان مالنكي مثلا قرآن أخرجت جزء قرآن ما ليه حزبي بقنا الله كذبه
صفحة كاملة هل صورة بالله كله لم يكون مرة إنه قفكوا إنه واحد بدن يسكون مشكلة يومه ما لكن وحير دائما مالك هذا هل بقى قرآن راتب الله هذا وأنا أكسنت وخيره وحكم ذا ووجودا بيا وحياه مفسدات كا أما قلبك قلتشية إلا قد يراده شيء كذا بدن meelaha waxyaabaha xun lagu hayo fadhi ku dirrada waxyaabahaas oo kale qofka haduu ka fogaado amalkii saalixa uu daaimaya laakiin hadii meelahaas qofku uu ku badan yahay majaalista khayrka hadaysan qofku ku badnayn ee majaalista kale iyo waxyaabaha mafsadaadka iyo waxyaabaha qalbiga angajiya ay qofku aad ugu badan tahay arinta iyada ah waxa laga yaabaa inay u keento amalkiisi saalixa inuu dhaafo tawbada kamida waxaan ku soo dari doonaa thamaraadka amalka saalixa in la daa'imo miraha laga helo mirahaas waxa kamid ah amalka saalixa oo la daa'ima jannadu sawiya amalka saalixa qofka haduu daa'imo soo wada maxaa dhacaya uu ku dhiman haduu amal saalixa ku dhintana jannadu galaya abi hurayra nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam maalmaha kamid ah bilaal buu ahaa bilaal al-habashi ayaa nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam maalmaha kamid ayuu yeeray bilaal buu yeeray wuxuu yiri bilaalow maxaad sameeysaa amalka aad sameeysid oo aad isleedahay amalka ugu fiican oo aad jannada ku galayso aad sameeysid muxuu yahay uu weydiiyay bilaal wuxuu ilaahay rasuulkiisa maxaad ii weydiisay wuxuu yiri waxaan arkay qof iga horeeyo oo tatalaabsanaya jannada ayaan ku arkay kuriyo nabiga waa la tusay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam sharqanta Soomaali waa fiirshay mise waa bilaal ninku iga horeeyo oo jannada dhex maraya marka jannada amalka aad ku gashay ii sheeg bilaal wax kale ma sameeyo wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisa wallahi amal anu haddaan aan sheego ma garanayo laakiin anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati laylin aw naharin illa sallaytu bidhalika at-tuhur ma kutiba li an usalli marba haddaan weesaysto buu yiri wax uun salaadan iska tukadaa amal kale oo aan hadda qabto ma garanayo haddaan weesaystoba laba ragcadood afar ragcadood wixii Allah ii qadaro oo salaada ma iska tukadaa nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam iska dhaaf wax kale ma waxa aad jannada ku gashay waaba intaaba ma aha cibaado inay badan tahay maxay tahay sababku waa la joogteeyay marnaba kama tagin biyo waligay markasta aan weesaysto laba ragcadood baan iska tukadaa ama ka badan joogtaynta marka la joogay cibaadada wanaagsan haba yaraade amalka wanaagsan haba yaraade jannada sabab ay u tahay in lagu galo waxa kamid ah ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ku jeclaado qofka amalka wanaagsan hadii uu joogteeyo maxaa kamid nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiis qudsi ilaahay wuxuu yiri وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الضنكي كمزول إنه وحيابها الصنها يوسو دوانيو إلا أنك جعله جعلك محا كينية صنع نقشة سوقفك وحيابها سوناك إله يقول دواني أو جوكتي وحاكم ذا عملك wanaagsan oo la joogteeyo dambiga lagu dhaafo qofka dambiyaha hore sameyn jiray oo tiro badan haduu amal wanaagsan joogteeyo hadda dambiga waa lagu dhaafay innal hasanata yudhibna as-sayyi'at waxyaabaha hasanaadka ay xumaha way kaxeeyaan way baabi'iyaan waxa kamid ah amalka wanaagsan oo la joogteeyo qofka mashaakilka iyo kurabka hamiga iyo walwalka ilaahay ka kaxeeyo maxay yahay amalka wanaagsan oo qofka uu joogteeyo ilaahay buu xiriir la yeelanay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam abdullah ibn abbas oo maalin la saaraa faras ayuu wuxuu ku yiri waan ku wiliyo kelmadan ku oranaya kelmadahaas xafid kelmadahaas waxa kamid aha ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidu tujahak ilaahay xafid hortaadad ka helaysaa waxa kamid aha xadiiska ilaahay waxaad aqoonsataa oo u cibaadaysataa xilliga aad barwaaqada iyo xaaladu isugu joogto oo aad barwaaqada haysato ilaahay wuxuu ku xasuusan doonaa oo ku gargaari doonaa marka dhibtu qabsato amalka saalixa marka maxaa lagu helaa ilaahay subhanahu wa ta'ala qofku markii uu caafimaadka ahaa markii uu san safarka ahayn haduu wanaag la yimi haduu xanuunsado mashaakil ku yimaado ilaahay baa u gargaaray subhanahu wa ta'ala waxa kamid ah amalka saalixa qofku had iyo jeer qalbigiisu ilaahay ku xiran yahay duu amalka saalixa qofku joogteeyo ilaahay ku xiran yahay waa miraha laga helo waxa amalka saalixa kamid ah oo ugu muhiimsan thimarta iyo miraha laga helo amalka saalixa waxa kamid ah husnul khatima waxa la heli karin qofku inuu khaatimo khayr ku dhinto
هذه جو قفوا عملك صالحة سميه إلهي وحو أسخريا إن عملك صالحة وحا قدام بيأدونك قتقايا ونغضه إلهي وحو لي هي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء تتك مؤمنين تا إلهي أدونك يا آخرة بوصوا أدونك وحو كسوا مركا أي دمانيان عمل صالح أين يكون انت مركا أي دمانيان لا إله إلا الله محمد رسول الله إني حليلان أو يكون واقع وحن كسوا قبين دونا أسبابته عملك لغو أقبل عمل كرت أقبل كيس إلهي بأسكال سبحانه وتعالى صالحة أسبابته لغو أقبله إيوه علامات كلغو يقانو إن قفك عمل كي لغا أقبل عمل كي صالحة سميني إن لأنك أقبلي محانكو قران كرنا إيوه أسبابته كيني كده إن قفك عمل كي لغا أقبله كنتي إن عمل كي لغا أقبل إلهي بأسكال سبحانه وتعالى إنه حال إن أمري كلي عمل كي أسبابتي سبب كي سي شروطي سي أركانتي سينا لني معنا أقبل كورك مشايك نبي وحي كسمين سلفكي ما أهين runtii wuxuu ahaa nin dhawaan soo gaaray oo odaya oo nin odaya iga sheekeynay wuxuu sanad walba soo xajii jiray sheekh abu ahaa sanad walba xaj ku aadi jiray marka odayaashii iyo dadba waxay yimaadeen sheekh waagid ma waayeen soo waayeen abu hadan xajka aadi jiray marka waxa la yiri sheekh ma iska daysay xajka oo inta asusana soo xajiisi ilaahay subhanahu wa ta'ala hadda intaas cibaado ku filan wuxuu yiri haddaad ii sheegtaan hal midah oo kamida xajkii aan xajiyay in la iga aqbalay hadda idinku ii hubtaanin waa iska daynaya laakiin yaa ii huba ma garanayo saadaraad amalka aqbalka ilaahay baa iska leh laakiin waxa jira asbaabo keeni kara qofka amalka in laga aqbalo waxa kamida amalku inuu khaalis yahay saan soo sheegay ilaahay dartii loo sameeyo waxa kamida amalku inuu waafaqsan yahay dariiqi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo de amal aan bidco ku dhex jiro ama riyaa ku dhex jiro ama istustus ku dhex jiro ama aan ilaahay dartii loo sameeyay in aan la aqbalayn hada taasi waa shay mashhuura waxa kamida amalka in la aqbalo iyo ducooyinka gaar ahaan illa ducadu cibaadada kamid tahay tiibul ma'kal qofku xalaal inuu cuno shayga xalaasha ah khatartii xaraamta khatartiisu leeyahay hadduu qofku intuu xaraan cuno ama xaraan soo labisto ama xaraan uu degan yahay uu yiraahdo waa cibaadeysanay ilaahay waan baraya laga aqbalay maayo nabiguna calayhi salaatu xadiis buu ku sheegay intuu ka warramay dadka muuminiinta iyo dadka mursaliinta isku wax baa la amray nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam thumma dhakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa'i ya rab mat'amuhu haram bi nabigu calayhi salaatu wasalam wa mashrabuhu haram وملبسه حرام وقضي بالحرام فأنا يستجاب له نين بصاصيصا أو سفر كم موقضه أو قعمها كرو تاجية وأسباب الدعاء الله أقبل أسباب الدعاء الله أقبل وحكم إذا قفك إنه باهي هي وحكم إذا قفك إنه مسافر يهي وحكم إذا قفك إنه قريب يهي وحيبها أسباب الدعاء الله أقبل وكم تهي أنت أسبابها أو الدعاء الله أقبل لها منك وقفك لي من الدعاء ولا أقبل الدين صاركم محوية هي النبي سحاران هي cabitaankiisa xaraanaha xaraan buu ku koray isagana waa xaraan baa laga yaabaa in uu u badnaaba fa anna yustajaaba lahu nabiga calayhi see looga ajiibay qof noocaas oo kala oo xaraan cunay marka ducada iyo cibaadaadka in la aqbalaa waxay ku xiran tahay qofku inuu tiibul ma'kal waxa uu cunayo qofku inuu hagaagsado nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri war nafna ma dhimanayso ilaa wixii loo qadaray ay dhamaysato adduunka ka dhamaysato فأحسنوا الطلبة قابك وحط رزاقات أو دونا إنسان هيك سيد بس إذنكم امتحان إذنكم نقن حاران دونا وحاد عنتان واي ميسان قف قاعد جو ودي منا يا مجرو أو رزاقات دي إلهي سبحانه وتعالى كذا معطي أنت لو طلق الأدوك وقفكم مركا أو لما يستوى يودي منا وحا كم إذا أسباب تلو أقبله عملك قفك دي عملك الجوكتي وصار شغني waxaa kamid ah asbaabta amalka lagu aqbalo oo lagu yaqaana qofku inuu amalkiisu dhexdhexaad yahay mutawassit al-i'tidaal wa tawassul intaasi waxaan ugu soo celcelinaynaa diinta dhan baa tawassul ku shaqeysa dhexdhexaad kaana an-naasu ummatan waahidatan ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ummad waxaa la idin ka dhigay wasatan dhexdhexaad ah yani ummad dhexdhexaad toosan waxaa kamid ah ilaahay in la baryo calaamaadka lagu yaqaano qofku amalka inuu laga aqbalayna waxaa kamid ah qofku inuusan dambiga u noqon inta qofka haduu toobad keeno oo amal saalix la yimaado dambigi inuusan u noqon oo dambigi nabcaysto oo markii lagu soo qaado uu karaahiyeysto dambigu sameyn jiray waxay calaamad u tahay in toobadiisa la aqbalay
laakiin haddii uu dambigii iska jecel yahay mararka qaarkoodna uu yiraahdo bal meelihii soo fiira xumaanta ku sameyn jiray waxay calaamad u tahay inaan toobadiisa laga aqbalin camalkiisuna uusan maqbuul ahayn marka waxaa la rabaa qofku imaam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala kitab madaarij as-salikin buu leeyahay wuxuu leeyahay ama idha tadhakkara ad-damba fa fariha wa taladdada falam yuqbal walaw makatha ala dhalika 40 sana qofku mar hadduu dambigii oo soo xasuusto oo uu soo macmacaansado oo ku sheekeeyo oo yiraahdo wallahi waagaas waa fiicnaa waxa sameyn jiray marka qaarkood dadka wayelka iyo waxay yiraahdaan waaga dhalinyarada ahaan saasaan u yeeli jiray si dambi iyo wax uu noocaas soo xasuusto 20 jirka iyo 30 jirka markuu ahaa dambiga noocaas buu leeyahay hadduu qofku dambi uu sameyn jiray uu macmacaansado waxa sabab arintaas laga dareemayaa inaan qofka toobadiisa la aqbalin walaw 40 sano 40 sano wax ka soo wareegto qofka wali wax laga ma aqbalin sababtoo ah dambigu wali jeclaysanaya laakiin qofku waa inuu dambigii aan lagu soo qaadi karo iyo waaga wuxuu sameyn jiray waxa kamid ah qofka camalkiisii in la aqbalay waxyaabaha lagu garto inay daacad u siiyado camalkii uu siiyado ila wanaag buu dhalaa qofku markuu wanaag iyo camal saalix la yimaado camalkiisii haddii laga aqbalo waxa lagu dareemayaa uu jeclaan uu siiyado maalinba intii uu ka soo kordhin hadduu bog akhrin jiray maalinkii oo bogaas ilaahay uu ka aqbalay subhanahu wa ta'ala quraanka maalinka dalay bog buu ka dhigan saddex ragcadood salaatu leeyl hadduu tukan jiray oo ilaahay ka aqbalo maalinka dab wuxuu jeclaysanaa inuu ka dhigo maxay 5 7 wax kale laakiin hadduu soo yarayo waxba meesha ku jira waxa kamid ah athabatu ala taa'a qofku taacada inuu ku sugnaado oo taacada uusan marna ka leexleexan oo uu sidoo uu bilaabay uu wado waxay ku tusinaysaa qofka in laga aqbalay wixii uu sameyn jiray cibaadaha waxyaabaha marka waxaan wax yar dul mari doonaa qofka hadduu daacada ku sugnaado faa'iidooyinka uu helayo waxa kamid ah inuusan walwal uusan helin iyo xasaro iyo qoomamo soo gabagabayn doonaa oo qofka hadduu waligi daacad iska sameeyo oo daacada joogteeyo oo ku sugnaado hatta hadduu safro ajarkii baa loo qoray nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam ida marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha hadith bukhari baa wariyay qofka haddii uu xanuunsado ama uu safar galo markii uu caafimaadka qabay iyo markii uu nagaa amalkii wanaagsanaa uu sameyn jiray intiisi baa loo qoray laga nuqsaamin maayo laana safarka waxa la yiri salaad hal la gaabiyo sunnihiina uu ka tagaya xanuunka qofka ma sameyn karo waxa laga yaabaa dib ku noqdo ajarkiisa way isaga qoraya ka naaqusmi maayo sadaraadii amalka la joogtay faa'iideysa waxa kamid ah in soo qofku walwalin oo is oran ama wax dhaafaan waxa kamid ah husnul khaatima waxa kamid ah amalka oo la joogtay faa'iidooyinka laga helo tarwiidu nafta ayaa tababar u qaadanaysa oo naftu waxay u baahan tahay marka hore amalka wanaagsan ma jecla laakiin hada lagu khasbo lagu wado marka iska baran caadi bay isaga noqon wax mushakil baa ma leh in aroor goor hore soo kaco salaatu leeyl tukato goor hore soo kaco jamaacad ka qayb qaadato maba dhibsanayso laakiin hadii kale waxay noqonaysaa hatta jamaacadka qof inuu ku tukado hadduu rag yahay mushkil ku noqonaysa gabadha inay waqtiga ilaaliso ayaa mushkil ku noqonaysa in ay salaadihii sidii adkaar ka daba akhriso oo cabaar meeshii ay ku tukatay joogto baa mushkil ku noqonaysa hadii kaas nafta iska rabtaa goortii salaamadaysato in ay adkaarti salaada akhrisato ducaysato subhanallahi saddex goor alxamdulillah saddex goor allahu akbar lagu nasto cibaadada lagu nastaa wanaagsan in laga ordo ma wanaagsan waxa kamid ah tarbiyatu nufus ala akhdi macaal umur nafta in lagu tarbiyo darajo sare inay gaari karto nafta waxa la rabaa in la baro inay meel hoose in ay ugu wareegto ma wanaagsana waxa fiican inay darajo sare inay gaarto ay jeceshahay naftu in lagu tarbiyo saas ayaa wanaagsan waxa kamid ah aakhiro in la xasuusto waxa kamid ah amalka in ikhlaas loo yeelo waxa kamid ah qofku acmaasha in laga aqbalay waxyaabaha uu garto waxa kamid ah inuu ka baqsan yahay qofku in amalka laga aqbali waayo inuu ka baqo waxay kamid tahay sababka qofka amalkiisa in la aqbalay lagu ogaan karo calaamadaha lagu ogaan karo laga qofku mar hadduu isdhigto oo yiraahdo intaas oo amal sameysay waana laga aqbalay meesha waxba ku jira laakiin qofku inuu baqa oo israa war ama laga aqbali waayo sanadkan soo sheegaynay aan ka sheekaynay oo yiri war aniga intaas oo goor aan xajiye yaa ii huba in xajkayga la aqbalay marka waxa iyada waxay calaamad u tahay amalkiisa la aqbalayba dadkii salafka ahaana saas ay ahaan jireen aayadan walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila aayad quraana way macnaheedu waxa weeye dadka
bixinaya ama la imaanaya wixii ilaahay siiyey qalbigooda oo walwalaya Aisha la weydiiyay waxa la yiri kuwaas qalbigooda uu walwalayo oo baqsan yahay qalbigoodu ma kuwa khamrada iyo cababa kuwa dadka xada iyo miyaa dambida weyn gala Aisha ma waxay tirmaya ma waa dadka soomaya oo salaadaya laakiin waxay ka baqayaan inaan soonkooda iyo salaadooda laga aqbalin bay ka baqayaan qofka marka waxa la rabaa cibaadada marka uu sameeyo ilaahay baryo ilaahay laga aqbal yiraahdo oo ka walwalo inaan cibaadada laga aqbalin النبي عليه الصلاة والسلام وحيري لن يدخل أحد منكم عمله الجنة قف إذا كان بدا عمل كيسو الجنة هو قلي ميو مركز واحد إيه رسول كيسو حتى أو عملات سمي الجنة هو قلي ميسيد مياه وحيري ما إلا أن يتغمدني الله برحمته إلا إلهي إن حارسني يبقى الله ضيسته أو عمل كايغا أقبل معه مركز عمل كأقبل كيسو ولا بقى عمر بن الخطاب أنا قلنا هي إن ضدك الجنة إصابة نول لو بشارية وأهل الجنة 10 بالجنة وحدتك ويدين جري الصحابة جارحان حذيفة بن المياه ومنافقين تيقيني نبيكم مركم منافقين تشيك يجري أنا جم يودري فعمر بن الخطاب كبقى إنه منافقين تكمل نقوة أو أهل الجنة بقى هو هذا إسكامر محمد ده مركي إنك حجيبان إنه جوجنا ضدك الصحابة وحيابين اللي بيقولي عجائبتها وحكمل لها من صحابة من كم إذا وحنا يذكر هراء وسلف كهايا وحيدي لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني من نتن ريحي وحيدي دنبق هذه دنبق أرلي هذاك كسورة والله بيدان أكتر أو تمادين بيجري دنبق أن سميي قرن كيسة كسر لها بيدان إيجاسو دوات وهذا عباده إلهي عابده يهوام سعيد كبحين بس له دنبيغا انسب دنبيغو hadii la soo uri lahaay laakiin ilaahay naxariistiisa weeye buu leeyahay dambiga waan sameeynaa waan qarsoonaa warna la kama hayo warna lana kama hayo inahaas ayaan rabnaa inaan ku soo gabagabeeyno waxaan rabnaa inaan dardaaranno naftayda iyo dadka mustamiiciinta aba ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsano acmaashaas saalixa ah oo aan ka waramayno muhiimadu ma aha dadku inay sanaqoon muhiimaduna ma aha dadku inay samayn laakiin laba arrimood ba ugu muhiimsan qaybtan aan kelmadda aan amal saalixa ugu dooranay kelmadda koowaad waxa weeye bal inaan isxasuusino in aan wadada iyada ahi inay tii saxda ahay tahay midas labaad inaan ku sugnaano thabaat xoogaa yarka aan haysano inaan ku sugnaano sababtoo ah goor nafta lana ka qaban doono ma garanayno midda saddexaad arrintaas iyada ay markii aan sameynayno inaan si tawassud ee dhexdhexaad oo la nimaano oo asbaabtii ina ku sugi lahayd amalka saalixa inaan la nimaano oo asbaabta haddaan la nimaano dadka wanaagsan in la joogo dikriga ilaahay in la xasuusto aakhiro in la xasuusto ma garanaysaa qofku inuu ma garanaysaa meelaha xumaanta iyo waxyaabahaas uu ka tagtago arrimahaas waxay keenaysaa amalku saalixa qofka uu ku sugnaado inahaasan ku soo gabagabeynayna wixii aan aseebay ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ay ka ahaatay wixii aan khaldayna hada naftayda iyo shaydaan bay ka ahaatay ilaahay iyo rasuulkiisuna bari bay ka yihiin intaas ayaan ku soo gabagabeyn lahayn wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam